السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. midhaha canabka waxa ay ka hortagaan saddex xanuun oo halis badan oo kansara waa kansarka ku dhaca beerka, kansarka ku dhaca naasaha iyo kansarka ku dhaca caloosha. waxa uu leeyahay midhaha canabku ay leeyihiin antioxidant powerful oo lagu magacaabo antioxidant resveratrol. antioxidant resveratrol waa maado ka hortagta samaysanka unugyada ee samaynaya inay tarmaan ama si markaa kantarool la'aana u badanaya ee keenaya kansarada ku dhaca caloosha iyo beerka iyo naasaha haweenka. maadadan uu qaniga ku yahay cinabku waxa kale oo ay samaysaa jidhka inay ka ilaaliso toxic accumulation inuu ku dhaco, yacni jidhkeena inay suni ku ururto oo suntaasi markaa ay damage karayso beerka iyo caloosha ayay ka ilaalisaa oo waxa ay jidhkeena ka remove karaysaa sunta ku ururaysa ee markaasi destroy garaynaysa ama burburinaysa guud ahaanba unugyada jidhkeena, gaar ahaan kuwa uurku jirta ee caloosha iyo beerka. ilaa hadda daraasadan caafimaad ee lagu tilmaamay in maadada ku jirta cinabku ay saddexdaa xanuun ee waaweyn ee kansarka caloosha iyo ka beerka iyo ka naasaha ay ka hortagto. haddana daraasadu ma damaanad qaadin in qof kasta oo cinabka subax kasta isticmaala uu xanuunada gebi ahaanba aanay cimrigiisa iyo noloshiisa ku dhacayn, laakiin waxa ay tilmaamayaan qof kasta oo subaxii ugu yaraan 4 xabbo oo midhaha cinabka cunaa in khatartan uu aad uga badbaaday oo xanuunadani inay ku soo degdegaan oo ay ku dhacaan ay aad iyo aad u adag tahay. dhinaca kale waxay daraasadan caafimaadku iyaduna ay tilmaamaysaa in midhaha cinabka oo la joogteeyaa ay keenaan in qofku uu helo nashaad aad u badan iyo firfircooni saayida oo ay ku tilmaamayaan faytamiinaadka iyo macdanaha ama mineralska uu cinabku leeyahay ee jidhka uu siinayo haddii uu qofku si joogta u quuto inay ka dhigaan qofka mid active oo aad u firfircoon, qof soo jeedo oo aleera, qof aanay ku badnayn xanuunada calool istaagga iyo sidoo kale xanuunka babaasiirta ayaa iyadana daraasada lagu tilmaamay haddii qofku ugu yaraan 4 xabbo oo midhaha cinabka uu subax kasta isticmaalo quraacda ka hor in calool istaagna aanu isku arkaynin, xanuunka babaasiirtana aanu ku dhacayn. laakiin daraasadu waxay raacisay in qofku marka koobaad uu sameeyo frequently feeding oo si joogta ugu quuto cunista midhaha cinabka oo subax kasta si routine uu hawshan u sameeyo. waxa kale ay sheegeen haddii qofku uu joojiyo in runtii faa'iidadan caafimaad ee cinabka lagu tilmaamay uu waayay, oo waxay tilmaamayaan macdanta iyo faytamiinada iyo sidoo kale antioxidantiga aadka u weynee saddexda kansar ee waaweyn ka hortagaaba inay u baahan yihiin inuu jidhku uu si joogtaa u helo. waxaanu ka helayaa cunista cinabka markaa waa inuu qofku si joogtaa u isticmaalo. haddii aanu si joogtaa u isticmaalaynin faa'iidada caafimaad ma helaya ayay tilmaamayaan. intaasaan kusoo ururinaya. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.